السلام عليكم مقعي وبرهان عبد الله داديها برنامج كيرشو وداق واد ka dhageystaan magaalada Galkacyo barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug 12 bisha December sanadka 2024 oo ku beegan maanta oo Khamiis waxaynu ku eegaynaa sida ay ula socdaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb barnaamijka Kiirasho wadaag waxyaabaha jeclaan la inuu kordhiyo iyo arrimo kale oo xiiso badan ee ku soo dhawaada oo la socda daawadayaasha iyo aragtida barnaamijka يورم هاي سلة سودو المقعد صدحان مركو ورسنا قبله كدبنا برنامج كيرشو وداق أيان ربنا إن تضبط كان كباينو راديو كالجدود وسمراب كي على مركو ورسنا قاب توصل وقبح برنامج اسمه كم تهديد كده جسته سداسو أركت إنه مركو ورسنا مقعد وسمراب سوقار برهان أديك كوحدة سودو ودا كيرشو وداق لصاحبتي حالنا هاي سودو ودا عاصمة وأنا فرح سنة هاي إنه مركو كوباد aan xubin ku yeelano magaalada laga dhageysanayo magaalada ka baxayo magacaygu waa Cabdiraafi Ciise Maalin waxaan leenahay ku soo dhawaada Dhuusamareeb barnaamijka Kiirasho wadaag anu waxaan kamid ah dadka ku tixan wali waxaan kala socdaa Facebook page-ka waxaan rajeynayaa hadii alla idmo inaan xubinteena ku yeelano barnaamijkaas oo ku tixanahay waxaan kamid ah dadka aragtiyada oo arrimaha deegaanka iyo xalinta khilaafaadka si gooni ugu tixan barnaamijkaas waxaan aaminsanahay inuu wax badan inuu yahay dadkii deegaankaba inuu waxtar u leeyahay waayo waxaad sheegtay inuu waxtar u leeyahay dadkii deegaanka maxaa kamid ah faa'iidooyinkaas leedahay bulshada uu leeyahay hadda mawduucdan ku sheegayo su'aalo kale ee xalinta khilaafaadka ay si gooni ah dadka anaga si gooni noo taabanaysa waxaana qofkaas oo xasuusan yahay in isqabsiga deegaanka dadka ka dhex dhaca ilaa heer maamul ilaa heer qofeed soo kala gaara oo qabaa'il iyo kooxo iyo xal midka ah ay yihiin waxyaalaha ugu waaweyn mawduucda deegaanka dadka taagan barnaamijkaas wuxuu ka mid yahay waxyaalahaas dhigi karo haddii xoog badan la geliyo oo dadka uu kala gaaro aaminsanahay deegaanka dadka inuu wax ka bedeli doono waxtarka si uu leeyahay waxay tahay in qof aragtidiis maalinta waxa uu ku waabreysay haddii barnaamijkan uu dhageysto hal mawduuc oo kamid ah waxa laga yaabaa in noloshiisa iyo aragtidiisa inay wax ka bedesho way maxaa jeclaan la inuu kordhiyo maadaama aad ka hadashay xalinta khilaafaadka iyo waxyaabo kale muhiim ah in dadku faa'iido u leeyahay in la soo gudbiyo maxaa silaada mid iyo labaha lagu daro oo barnaamijka lagu soo kordhiyo barnaamijka la waxyaalo is leeyahay arrimaha deegaanka ama cimilada deegaanka dadka la xiriira deegaanka la xiriira waxa looga hadlaa hadal kaliya looga hadlaa waxa u baahan tahay in ficil horta markoo lagu daro oo su'aalo kale hadii deegaanka wax maxaa laga sameeynayaa in wixii ficil loo bedelo deegaanka maanta saameyn kala duwan ay mid biriga dabaylaha qorraxda biyaha waxaas oo dhan dhirta waxaas oo dhan waxa isku leeyihiin wax isla xiriira marka waxaan miisanahay horta marka koobaad in arinta deegaanka ficil loo bedelo wax la gashto oo deegaanka waxa lagu dari karo lagu daro su'aalo kale hadda magaalada aan Soomaaliya oo aan joogno dhirta way ku yartahay hadii dhir badan waxa aaminsan lagu abuuro inay tahay wax ficil ah oo wanaagsan oo deegaanka lagu kordhiyay sidoo kale waxyaalaha aaminsanahay barnaamijka uu soo daro waxa kamid ah kalluumaysiga deegaankeena waxa baahi weyn loo qabaa in kalluumaysiga la xoojiyo marka dadkuna inta badda ku jirta maahana inta kale waxa aragtiyo ay ka qabaan kalluumaysiga lama arko